qaar ka mid ah hogaamiyaal dhaqameedka sumcadda weyn ku leh deegaanka Soomaalida oo ay ugu horeeyaan Suldaan Cabdiraxmaan Bade, Suldaan Foosi Maxamed Cali, Ugaas Cabdullaahi Cabdi iyo Sheekh Aadan oo ah odayaashii dulmidiida inta badan isku hawlay isbeddelka cusub ee maanta ka jira deegaanka Soomaalida oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waraysi siiyay TV-ga caalamiga Star TV. waxa weeyaan dulmidiid awal bade wayru u soo halganay oo soo dagaalanay dhaxal iyo roob iyo baraf baa xafiiska wasaaraha nagu horqooyi intii gudaha joogtana waa loo soo xidhay waa la garaacay. waxaan leeyahay sharci-darradii shaytoole aynu ka cabanaynay innagu yaynaa ku kicin. waxa weeyaan meeshan waa inuu sharcigu sarreeyo wixii aad aragtaane ahee muxuaha cid ama magacoo lef ku dhex dhuumanaysa ee leh waxaanu nahay iyagoo heega ahaa oo lef baanu nahay dee inaad disho laguma ogola sharciguna kuma ogola laakiin waa hay-adaha nabadgelyada iyo booliska waa inaad tirahdaan nimankii weeyaan kuwan shaytoole magaalada dhibka u geystay oo saas ku dejisaan. ururka ONLF waa urur soo halgamay oo waxa weeye dad fara badan ay halganka ay kaga shahiideen waxa ay doonayeen ummadan xaqnasirkeeda in ay gaarsiiyaan bay doonayeen. dadka badankiisuna waxa weeye in qalbiga iyo afkaba way ka taageersanayeen dadka badankiisu laakiin khaladaad fara badan baa dhacay dhibaatooyin fara badan baa dhacay wadanka xasuuq fara badan baa dhacay oo magacooda ummadda lagu gaarsiiyey maad fara badan baa dhacay xabsiga waxa weeye aad baa dadka xabsiga loogu waxyeeleeyey aqal kasta oo ku yaala wadanka dhibaatadu oo ONLF awgeed baa dadka wax loogu waxyeeleeyey. marka sidaa awgeed waxa weeye halgankii ummadaasi ay dhibaatadaas ay ku gaadhay in lagu ciyaaro oo lama rahabaabiyo anigu haddana odayaashii deegaanka aanu nahay ma aqbali karno. wixii khaldan waxa weeye waanu u sheegaynaa ummadda waan u sheegaynaa ONLF waan u sheegaynaa cid kasta oonu tuhunsannahay wax khaldan inay jirto khaladka xaggooda ka jirto waan u sheegaynaa. ururka ONLF waxaanu leenahay ilaa iyo hadda waxa ayaan daraa ururka ONLF inuu caddayn waayo uu sheegi waayo heego in aysan ahayn ONLF inay sheegi weydo waxaanu garan lahayn sababta waxaa kalifay waanu garan lahayn heego waan ognahay waxay samaysay waxa loo sameeyey iyo cidda samaysay weyn ognahay iyo wixii dhibaato ay geysatay waa wax ummadda ku nool Jigjiga iyo deegaanku ay Itoobiya ay ogtahay weeye. waxa ayaan daraa kuwii shalay ONLF baabi'inay ee la dagaalamay ee meedkooda cagaha saarayay inay maanta mas'uuliyiintii ONLF soo dhaweynayaan iyagoo calankii ONLF huwan waa wax ayaan daraa oo nati daraa weeye. sida awgeed ma doonayo arrintaa inaan aad ugu dheeraada ma doonayo. waxaan leeyahay ururka ONLF hadda ka hor waxa weeye dad fara badan oo ka hadlay way jiraan waa in la caddeeyo oo mowqifka heega ay ka qabto ONLF waa inay caddayso weeye oo magacoodan ay ku gambanayaan ee dhibaatada ay ku abuurayaan. haddii dad nadiif ah ONLF maanta ay soo baxaan magaalada Jigjiga qaar fara badan oo heega ka hor iman haddii la soo bixi waayaan qaar badan oo calankii ONLF huwan oo heega sheeganaya ayaa soo bixi. oo ururka ONLF oo kale kuwa heegada ah ee ku dhex dhuumanaya waa inay si cad u caddeeyaan yiraahdaan kuwaas annaga ma ah. laakiin ninka si nabadgelyo u jooga ee si nabadgelyo u taageeraya cid u diidaysa ma jirto. laakiin waxaa la diidan yahay waxa weeye in qas laga abuuro. waxaan ka waraynaa shaytoole magaalada Jigjiga cidda boobta heega ahayd shacabkii magaalada ku noolaa ee boqolaalka sano wada deganaa dadkii boobay ee dhibka ku sameeyey waa maamulkii jirayba iyo dhalinyaradii dee dadkii inay maanta haddana ku dhuuntaan shaar kale dee midaan qaadanayna maaha. dadka dhibaatada wada ee ka faa'iidaysan waayey baaqii dowladdu ay u soo jeedisay ee ahaa in lees cafiye ahaa ee ku samrila ee hadalkaa ku farxila ee waxaa weeye dhibaatada daynla dowladdu inay talaabo degdega ay ka qaadaan ka codsanaynaa. ururka ONLF dadwar waxay leeyihiin waa urur qabiil xaqiiqaanida aadan ahaan magac ONLF oo magac qabiil oo cabiraya mooyaane urur ONLF anigu waxaan ahay xuduudka Kenya ka yimid oo deegaankay laakiin qadiyada ururka ONLF waa qadiyad ummad Soomaaliyeed miilayso way maxay yeelay habkay u hadlayaan dhibaatooyinka Soomaali markay dhacaan Itoobiya waa hab Soomaaliyadoo qancinayo way war maadaama Soomaalidoo qadiyadiin aaminsan tahay idinka naftiin waxaad sameeynaysan Itoobiya ururada mucaarid ku dhaw way soo galbadeen waxay maanta ku jiraan dalkood iyo dadkood sidii u dejin lahaayeen jaha fiican dad siin lahayn bay ku jiraan idinkina hadii casmaraha fadhinina soo galbada
dadkin ka qiib qaata dimuqraadiyad jirto iyo baaqi maanta madaxweynaha kililka mar walba soo saarayo macal idinka iyo macal annag shacabkao dhan aan taageerno sidan darteed shacabka soomaaliyeed etoobiya maanta tartan bay ku jirtaa tartankaas qowmiyad qaarkood cirkaasay tegi doonaan qowmiyad qaarkoodan hoos bay u dhacayaan yaan noqonin ummad soomaaliyeed haddii aan nahay qowmiyadda hoos u dhacaya yay noqonin qowmiyad kor u kacayaan noqono korna seen u kaci karnaa haddii marka hore dowladda inaan taageerno aan isku xirnaanno oo maaragtay walaalnimadeen soomaalinimadeena muujino etoobiya dhan baa annagaa ka sarraynayna jijigaha la ahaato dhagax buur ahaato qabdaar ahaato godi ahaato wardheer ahaato afdheer ahaato liibaan ahaato kulli waxaan doonaynaa inaan nabadgelyadii aan u dagaalamaynay ay hirgashaan doonaynaa waxaan u baahan nahay dhammaanteen inaan garab istaagno dowladda inaan taageerno oo aan u muujino taageero buuxda u muujino weye waa dowlad curduna waxay jirtaa gebigeedaba bil iyo maalmay jirtaa ma aha marka maantii aan qaylin lahayn ama aan buuqi lahayn ama dhibaato aan samayn lahayn waxaan u baahan nahay oo fariin aan u jeedinayaa waa inaan kala garnaa heego iyo onlef sideedaba heego cidda la yihahda waa naqaanaa waa dadkii dhibaateeyey dadkeenna maanta ee gobollada dhibka ka sameey aan garanayna ee kaniisadaha gubay ee xoolaha boobay ee ummadda baabiye weye haddii dowladdii iyo odayaashii iyo madaxweynihii shacabka ay dhaheen hal laysa saamaxo oo saamaxaaddii u arkeen in laga baqanayo ama aan la qaban karaynin waxaan leenahay dowladdu cid kasta oo dhibaato samaysa waa in laga dabataa oo la qabtaa qofka balaayo ka hortag mooy ka dabatag ma aha xalku wuxuu ku jiraa hadduu qofku garan waayo saamaxaaddii loo saamaxay ee loo fidiye dadka u fidiyeen hadduu garan waayo wuxuu mudanaya ciqaabkeeda waxaa meesha ka muuqata in la saamaxaayey inuu qofku u arkay inaan cidna waxba ka qaadi karayninba sidaa darteed waxaan u baahan nahay inuu shaqeeyo sharcigu oo ay dowladdu tallaabo cad ka qaado way ku mahadsan tahay dowladda cafiskay fidisay waa soo dhoweynaynaa laakiin waxaan u baahan nahay oo dareen badan ama shaki badan dadka waxgeliye ay tahay jamhadda onlef waa jamhad xoreynta deegaanka usoo dagaalantay waxay ka dagaalamaysay dulmiga diidaneed bay ahayd waa inaan kala naqaanaa marka jamhaddii iyo heega waa in la kala bartaa wey awalba dee waynu u soo halgannay waa u soo dagaalanay dhaxan iyo roob iyo baraf baa xafiiska wasaaraha nagu horqooyi intii gudaha joogtana waa loo soo xidhay waa la garaacay waxaan leeyahay sharcadaradii shatoole aynu ka cabanaynay innagu yaynaan ku kicin waxaa weeyaan meeshan waa inuu sharcigu sarreeyo wixii aad aragtaane ahee muxuaha cid ama magacoo lef ku dhex dhuumanaysa ee leh waxaanu nahay iyagoo heega ahaa oo lef baanu nahay dee inaad disho laguma ogola sharciguna kuma ogola laakiin waa hay-adaha nabadgelyada iyo booliska waa inaad tirahdaan nimankii weeyaan kuwan shaatoole magaalada dhibka u geystay oo saas ku dejisaan ururka ONLF waa urur soo halgamay oo waxaa weeye dad fara badan ay halganka ay kaga shahiideen waxa ay doonayeen ummadan xaq nasirkeeda in ay gaarsiiyaan bay doonayeen dadka badankiisuna waxaa weeye in qalbiga iyo afkaba way ka taageersanayeen dadka badankiisu laakiin khaladaad fara badan baa dhacay dhibaatooyin fara badan baa dhacay waddanka xasuuq fara badan baa dhacay oo magacooda ummadda lagu gaarsiiyey maad fara badan baa dhacay xabsiga waxaa weeye aad baa dadka xabsiga loogu waxyeeleeyey aqal kasta oo ku yaala waddanka dhibaatadu ONLF awgeed baa dadka wax loogu waxyeeleeyey marka sidaa awgeed waxaa weeye halgankii ummaddaasi ay dhibaatadaas ay ku gaadhay in lagu ciyaaro oo lama rahabaabiyo anigu haddana odayaashii deegaanka aanu nahay ma aqbali karno wixii khaldan waxaa weeye waanu u sheegaynaa ummadda waan u sheegaynaa ONLF waan u sheegaynaa cid kasta oonu tuhunsannahay wax khaldan inay jirto khaladka xaggooda ka jirto waan u sheegaynaa ururka ONLF waxaanu leenahay ilaa iyo hadda waxaa ayaan daraa ururka ONLF inuu caddayn waayo uu sheegi waayo heego in aysan ahayn ONLF inay sheegi weydo waxaanu garan lahayn sababta waxaa kalifay waanu garan lahayn heego waan ognahay waxay samaysay waxa loo sameeyey iyo cidda samaysay waynu ognahay iyo wixii dhibaato ay geysatay waa wax ummadda ku nool jigjiga iyo deegaanku iyo Ethiopia ay og tahay weeye waxa ayaan daraa kuwii shalay ONLF baabi'inay ee la dagaalamayay ee meedkooda cagaha saarayay inay maanta mas'uuliyiintii ONLF soo dhaweynayaan iyagoo calankii ONLF huwan waa wax ayaan daraa oo nati daraa weeye sidaa awgeed ma doonayo arrintaa inaan aad ugu dheeraada ma doonayo waxaan leeyahay ururka ONLF hadda ka hor waxaa weeye dad fara badan oo ka hadlay way jiraan waa in la caddeeyo oo mowqifka heega ay ka qabto ONLF
waa inay caddaysan weeye oo magacoodan ay ku gambanayaan ee dhibaatada ay ku abuurayaan haddii dad nadiif ah oo la maanta ay soo baxaan magaalada Jigjiga qaar far badan oo heega ka hor iman haddii la soo bixi waayaan qaar badan oo calankii oo lafta huwan oo heega sheeganaya ayaa soo bixi oo ururka oo lafo kale kuwa heegada ah ay ku dhex dhuumanaya waa inay si cad u caddeeyaan oo yiraahdaan kuwaas annaga ma ah laakiin ninka si nabadgelyo u jooga ee si nabadgelyo taageeraya cid u diidaysa ma jirto laakiin waxa la diiday waxa weeye in qas laga abuuro waxa ka waraynaa sharto magaalada Jigjiga cidda boobta heega ahayd shacabkii magaalada ku noolaa ee boqolaal sano wada deganaa dadkii boobay ee dhibka ku sameeyay waa maamulkii jiray ba yaa dhalinyaradii dadkii inay maanta haddana ku dhuuntaan shaar kale midaan qaadanayna maaha dadka dhibaatada wada ee ka faa'iideysan waayey baaqii dawladdu ay u soo jeedisay ee ahaa in lees cafiye ahaa ee ku samrila ee hadalkaa ku farxila ee waxaa weeye dhibaatada daynla dawladdu inay talaabo degdega ay ka qaadaan ka codsanaynaa ururka ONLF dadwar waxay leeyihiin waa urur qabiil xaqiiqaanida aadan ahaan magaca ONLF oo magac qabiil oo cabiraya mooyaane urur ONLF anigu waxaan ahay xuduudka Kenya ka yimid oo degaankay laakiin qadiyada ururka ONLF waa qadiyad ummad Soomaaliyeed miilayso way maxay la habkay u hadlayaan dhibaatooyinka Soomaali markay dhacaan Itoobiya waa hab Soomaaliyeed qancinayo way war maadaama Soomaalidu qadiyadiin aaminsan tahay idinka naftiin waxaad sameeynaysan Itoobiya ururada mucaaradka oo dhan way soo galbadeen waxay maanta ku jiraan dalkood iyo dadkood sidii u dejin lahaayeen jaha fiican dad siin lahayn bay ku jiraan idinkina hadii casmaraha fadhinina soo galbada dadkin ka qayb qaata dimuqraadiyad jirto iyo baaqi maanta madaxweynaha kililka mar walba soo saarayo macal idinka iyo macal annag shacabka oo dhan taageerno sidan darteed shacabka Soomaaliyeed Itoobiya maanta tartan bay ku jirtaa tartankaas qowmiyad qaarkood cirkaas ay tagi doonaan qowmiyad ka qaarkoodan hoos bay u dhacayaan yaan noqonin ummad Soomaaliyeed haddii aan nahay qowmiyadda hoos u dhacayay noqonin qowmiyad kor u kacayaan noqono korna seen u kaci karnaa haddii marka hore dawladdeena taageerno aan isku xirnaano oo ma aragtay walaalnimadeen Soomaalinimadeena muujino Itoobiya dhan baa naga ka sareynayna Jigjiga la ahaato dhagax buur ahaato qabdaar ahaato godi ahaato warreer ahaato afleer ahaato liibaan ahaato kulli waxaan doonaynaa inaan nabadgelyadaan u dagaalamayna ay hirgashan doonaynaa waxaan u baahannahay dhammaanteen inaan garab istaagno dawladda inaan taageerno oo aan u muujino taageero buuxda u muujino weeye waa dawladda Urduna waxay jirtaa gebigeedaba bil iyo maalmo jirtaa maaha marka maantii aan qaylin lahayn ama buuqin lahayn ama dhibaato aan samayn lahayn waxaan u baahannahay oo fariin aan u jeedinayaa waa inaan kala garnaa heega iyo ONLF sideedaba heega cidda la yihahda waa naqaanaa waa dadkii dhibaateeyey dadkeena maanta ee gobollada dhibka ka sameeyaan garanayna ee kaniisadaha gubay ee xoolaha boobay ee ummadda baabiyey weeye haddii dawladdii iyo odayaashii iyo madaxweynihii shacabka ay dhaheen hal laysa saamaxo oo saamaxaadii u arkeen in laga baqanayo ama aan la qaban karaynin waxaan leenahay dawladdu cid kasta oo dhibaato samaysa waa in laga dabataa oo la qabtaa qofka balaayo ka hortag mooy ka dabatag ma aha xalku wuxuu ku jiraa hadduu qofku garan waayo saamaxaadii loo saamaxay loo fidiyo dadka u fidiyeen hadduu garan waayo wuxuu mudanaya ciqaabkeeda waxaa meesha ka muuqatay in la saamaxaayey inuu qofku u arkay inaan cidna waxba ka qaadi karayninba sidaa darteed waxaan u baahannahay inuu shaqeeyo sharcigu oo ay dawladdu tallaabo cad ka qaado way ku mahadsan tahay dawladda cafiskay fidisay waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan u baahannahay oo dareen badan ama shaki badan dadka waxa geliye ay tahay jamhadda ONLF waa jamhad xoreynta deegaanka kusoo dagaalantay waxay ka dagaalamaysay dulmiga diidaneed bay ahayd waa inaan kala naqaanaa marka jamhadda iyo heega waa in la kala bartaa wey